islaam sheegay waxay nagu soo dhow doorashooyinka nagu soo dhow doorashadaasi maanta la galay waa taan la leeyahay ku soo baxayaan in dhalinyar cusub haddana fursad ka helaan golayaasha deegaanka dhalinyarta inta roorroon ee maartay doorashaystu ka weyn tahayna inay ka helaan fursad golayaasha wakiilada doorashadaasi marka dhan walba saddex isku tageen ee hawshii dhan walba laga soo rogay waxay noqotay in muddo badan baa dadku ka ay maartay wax la yiraahdo qaybsi aad looga hadlay tii maanta waxay timiday markuu duruuftii dhan walba laga rogay culayska jira iyo golayaasha muddo dhaafay in la yiri taa wixii ka jira ama tabasha iyadoo laga tagay in maanta duruuftu waxay noo kaliftay in doorashadiis mar labaad lagu galo sidii 2005 ayay duruuftii kaliftay maanta taagnay marka cid kasta oo tabasho qabta iyadoo garowshu jiro iyadoo la lahayn waxa tabaysaay ma jiraan la lahayn waxa leedahay maanta duruuf baa kaliftay inaan laga gaarsiin karin ama aanan maartay la qaban karin ama duruuf lagu furo dastuurka meelaha qaarkood haday xitaa gaari lahayd awoodda qaybsiga ama saam qaybsigu in dastuurkii wax laga bedelo maanta waqti la furo oo dastuur la furo ayna duruuftiisa taagnay marka waxa leenahay dhalinyartu Soomaaliland gobol kasta joogaanba waxaan jecelahay inuu diyaar garoobaan doorashadaasi waqti ugu suuragalsan ay noo soo diyaariyaan raggii loo igmaday ahaa komishanka qaranka Soomaaliland isla markaana waa tartane raggiina meesha yimiday iyo habliina meesha yimiday ka kulmiyeen sidii xisbigeennii walba u badin jiray sidoo badin lahayn oo soo diyaar garoodaan weeyaan saala sheegay weeyaan xisbiga kulmiye laba jeer oo madaxweynimada heeran ku galay intii kale doorasho soo dhacay number 2 oo buuxa markaas aan halkeenu haysanna inaan u diyaar garoono inaan golayaal deegaan iyo golayaashii golay wakiiladaba halkeena ka haysan jirnaan ka haysano oo soo diyaar garoodaan in la burankii noqono ayaa loo baahan yahay